gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saaka ku qarxay agagaarka isgoyska Digfeer ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa ah mid tugtiisa laga maqlay inta badan magaalada. Qaraxa ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la doonayay in lagu weeraro bartilmaameed aan la garanin, waxaana wararka ay sheegayaan in dadka deegaanka ay ciidamada ammaanku ku wargeliyeen in gaari laga shakisan yahay uu halkaasi yaalo. qaraxan ayaa burburiyay guryo badan oo ku yaala halka uu ku qarxay gaarigu, waxaana muuqaalka aad ka arki kartaan burbur xoogan oo soo gaadhay guryo deegaan iyo ganacsi. lama oga ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in qaraxa ay ku dhaawacmeen 12 ruux oo askari ku jirto. qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa markii uu dhacay qaraxaasi ayaa la hadlay Somali Cable oo waxay nooga warbixiyeen waxyaabihii ay indhahooda ku arkeen. ku dhacay meel u dhawaan joogay qarax jugti markay yeertay aan kala cararnay isbitaalkana waa soo aaday. wallahi dad wax ku gaaraan dad laan ma ahan dadkan dukaamada waxaan antida dadka ka burburtay aan arkay ana had dhaawacay isbitaalkaasna waa arko dhaawacyo waa yaalaan oo indhaxumo. wallahi ilaa adiga 10 ama ka yartahay waxaan arkay cunuga caloosha ka soo dhacdo isbitaal Digfeer la geeyay intaas arkaan. hooyadii markaa ku xidhowday mise naxdintii aniga ka cunuga ma waxba gaar dhaawac waxba gaar adii calooshiisa kala laadabo. ilaa halkan jiray oo joogay oo dheereen marka salaadii hore ayaa la yiri baabuur taagan meesha oo ilaa ama loo saaci bar inay hayd waxaan la yiri qaraxa meeshii inuu yaalo omleen dadkii marka badanka uu kala cararay marka dad yar ma ahan dadka kala badanka uu baxay kadib marka waxa dhacday meeshii inay baabuurka la arkay markii la arkay ciidamadii waxba yaa meesha ayaa joojiyay kadibna waxa ilaahay ku kulmiyay meesha inay ka dhaceen oo ciidanka uu joojiyay meeshii baabuurka aminkii qarax uu dhacay ama in 3 saaciyo ahayd 20 daqiiqo inaan ahayd ayuu ku dhacay meeshii uu dhacay marka dad badan hadda wax khasaaro u gaaray oo hantiyaad laakiin hadda wax khasaaro oo dhimasho ah oo dada u yartay dhimashadiisa meesha dhaawac ma badnayn ma yaran hadda lambar aan ku sheegi karo ma laho laakiin dhanbe ma yaran ma badnayn dadkii ku dhaawacay meesha dad yar ahaayeen hal nin waa xaqiiqo waxaan ka helnaa oo dhintay oo aragnay binaantiisa waa arkayni marka laakiin wax dhintay oo badan ma jirin hanti badan ay ku khasaartay dad deganaa intaas oo guriyo hadda aad aragtaan dadka bulshada arato ayaa ku dhimatay meesha guriyada degan way ku dhimaadeen. laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya wali war rasmi ah kama soo saarin baaxadda khasaaraha ka dhashay qaraxa, laakiin hay'adda NISA ayaa barteeda Twitter-ka ku soo qortay in qaraxaasi la fashilay isla markaana wax khasaaraha uusan ka dhalan. Kafee Daar Ibrahim, Somali Cable, magaalada Muqdisho.